السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida idaafeeda magacaygu Axmed Faarax halkaan nagala socotiina waa himila media production soo kalimalaa iskuule ku soo dhawaada casharkii sagaalaad ee softwareka Photoshop kana mid ah casharta aynu ku baranayno graphic design-ka saaxiibayaal casharkeenan sagaalaad waxaynu ku baran doonaa sida loo sameeyo wax la yiraahdo roll up design ama roll up banner wax la yiraahdo sida loo diyaarsho haddaba saaxiibayaal roll up ka aan diyaari doono kanoo kale waay sida u jeedina meeshan wax yar ayaan rabaa inaan soo xasuusno ugu horeyn adiga design-ka adiga ayaa diyaarsanaa laakiin sabirtan aad ku dhagsanaysid roll up-ka markaad design gareedaha dhow aad ku dhajinaysid birtan waxaa lagu gadaa meelaha madbacadaha oo wax lagu daawacayo inta badan birtan laga helaa birtan markaa waxa aad u samaynaysid ma ahan design-kan ayaa samaynaynaa kadibna birtan ayaa maartay ku dhaji doonaa haddaba waxaan arki doonaa cabirka oo qaato roll up ka hor markaa intaynaan bilaabin casharka aynaan gudagelin waxaan rabaa inaan hal mid idin soo xasuusiyo waxaa jiray cashir hore oo aan uga hadlaynay size-ka iyo maartay name-ka oo yeero doona size-ka haddaba qaybtan nameska waxaa ujeedaa magac kasta hadda loogada ugu horeydo oo kale waxaa ujeedaa size-ka ay qaadanayso haddaba saaxiibayaal qaybta ugu dambeydo ayaa maartay ku jira roll up banner ku roll up banner waxa uu qaadanaa 685 lagu dhuftay 1530 waana pixel sidoo kale waxaan ka dhigi doonaa saaxiibayaal waxa CMYK ayaan ka dhigi doonaa saaxiibayaal maadaama aan ka rabno roll up-ka mid aan daabacayno hagaag saaxiibayaal ugu horeyn waxaynu samayn doonaa waxaan soo furi doonaa qaybtan halkaas file ayaa tagaynaa kadibna waxaan leenahay new markaan hano height-ka waxaan ka dhigi doonaa weight-ka waxaan ka dhigi doonaa 685 halka height-kana aan ka dhigi doono 1530 sidoo kale waxaan ka dhigi doonaa chief halkan waxaan ka dhigi doontaa pixel haddii horan centimeter wax la mid ah waxaad doorataa pixel halkan waxaan ku qori doonaa roll up ayaa maartay ku qori doonaa waxaan ku sheegi doonaa halkan magaci uu yeelanayo design-ka aan samaynayno ayaan ku sheegi doonaa hagaag haddaba saaxiibayaal markaan samayno halkan waxaan ka dhigaynaa CMYK oo maanta ma isticmaali doono waxa la yiraahdo RGB kala ma isticmaali doono waxaan rabnaa design-kan in la daabaco ayaan rabnaa marka waxaan leenahay CMYK ayaan maartay isticmaali doonaa kadibna waxaan leenahay create marka aan dhahno waxa ujeedaa hadda waxaan noo abuurmay design-ka noocaan ayaa noo abuurmay marka uu ku sameysmo shape-kan marka waxa ujeedaa waa xabaq maartay hadda design ma ulaha ugu horreyn markaa design-ka ayaan diyaari doonaa waxaan ku bilaabi doonaa inaan dhigno shape-kan kadibna aan soo gelino sawirka halkaas ayaan maartay hawshan ka sii wadaynaa roll up-ka hadda anaga noo diyaarsan waa mid ay inta badan isticmaalaan waxa la yiraahdo university ama jaamacadaha mid ay isticmaalaan waa kan marka aniga hadda jaamacadna magaceed kuma aan sheegin laakiin waxaa soo qaatay sawirka maadaama marka aan sawirka soo qaato waxaan ku khasbanahay inaan sawirkan iyo waxa meesha ku qoran ay is yeeshaan marka waxaa ujeedaa meeshan faculty-da ay jaamacaddu bixinaysay dhowr faculty ayaa maartay meeshan soo gasho doonta adigu hadhowti laakiin aniga hal faculty ayaa maartay ku soo celcelisho computer science kaliya ayaa ku soo celcelishay sababta ugu soo celcelinayana waxay tahay in waxaa rabaa hadhowti adiga waxaan aad baraatikeedid oo ma doonayo anigu inaan waqti badan gelsho sababtoo aan waxaan kutusaa design-ka kaliya laakiin adaa waxaa lagaa rabaa saaxiib inaad wadadii raacday haddaba waxaa noo diyaarsan marka cabirkii ayaa noo diyaarsan roll up-ka marka waxaan rabnaa inaan design-kaan dejino ugu horreyn halkan ayaa tegaynaa waxaan tegaynaa sidoo kale qaybtan shapes-ka ayaa tegaynaa shapes markaa tagna waxaan ka dooranaynaa halkan ay noogu qoran tahay ellipse tool markaad dooratid kadib halkaas ayaad maartay sidaas maartay u dhigaysaa halkaas markaa sidaas u dhigtid kadibna waxaad samayn doontaa saaxiibayaal kalarka waad ka bedelaysaa kalarka markaas adigu u baahan tahay ayaad maartay isticmaalaysaa ana hadda kanoo kale ayaan maartay iska qaadanaa kadibna waxaa leeyahay control T markaa yiraahdo xoogaa sidaas ayaa maartay u jaleecina oo dhankaas maartay ayaa u sameynaa roll up-ka xoogaa mid saas u samaysan ha ii noqdo ayaan dhihi doonaa kahor markaa intaana roll up-ka aanan maartay saarin shape-kan waxaa samayn kartaa inaad sidoo kale aad sameeydo waxa la yiraahdo sawirka haddii kalena sawirka waa dib marsan kartaayo waxaad marka hore dhigaysaa shape-ka haddaba saaxiibayaal shape markaan saa u dhignay kadibna waxaan samayn doonaa inaan shape-ka xoogay saarno stroke maadaama keenna hore oo lahay stroke haddaba si aan markaa stroke u saarno waxaan ku khasbanaa shape-ka xoogaa inaan kalar ka bedelno oo maartay kalarkii stroke maadaama aan ka rabno white ka hor markaa intaan stroke aanan gelin shape-kan meesha waxaan soo geli doonaa aniga deertan sawirka ayaan maartay soo geli doonaa shape-ka ayaan dul tagaa kadibna waxaa leeyahay file kadibna waxaa leeyahay open ama control O shortcut-ka aad maartay isticmaali doontaa in marka aad sameydid aniga wuxuu igu diyaarsan yahay halka file-ka ugu qoran tahay bilow ayuu maartay ugu diyaarsan yahay waxa la yiraahdo sawirka oo maartay ugu samaysan yahay halkan ayuu ugu diyaarsan yahay sawirka waa kana aniga hadda aad iska soo qaadana kadibna waxaan samayn doonaa sawirka markaan soo qaato waan soo jiidaa kadibna waxaan dul geynaa roll up-ki aad design gareynayo halkan aan maartay dhiga kadibna waxaa leeyahay control T kadibna waxaan isla qabanaa shift iyo alt xogaa sawirkan waa weyneynaa oo meesha ayaa maartay sidaas ula ekaysiina inaa markaa asaas ku sameeyo kadibna waxaan sameynaa inaan sawirkan qaybta hoose aan qabto xogaa saas aan ugu jeedo haddana waxaan samayn doonaa saaxiibayaal inaan shape-kan xogaa soo kor marsho maadaama aan rabo inuu sawirku gadaal ii maro shape-kan maartay ayaa maartay soo kor mari doonaa hadda waxaa ujeedin markaa shape-kii ayaa ii soo kor mara xogaa sawirkiina
gadaal ayuu maray sida hadda meeshaan ugu jeedin waxaan samayn doonaa markaa shape-kan stroke yar ayaan saara asaga ayaa klik leedahay kadibna qaybta shapes-ka ayaad maartay klik siinaysaa kadibna waxaad soo furaysaa qaybtan stroke waxaad samayn doontaa markaa stroke nooca aad rabtid ayaad maartay saari kartaa sidoo kale waxaad kordhisanaysaa size-ka stroke oo qaadana sidaas ayaa maartay u badsan kartaa sidaas ayaa ku samayn kartaa ama waxaad samayn kartaa oo tan kaaga sahlan oo samayn kartaa inaad shape-ka markaa select gareydo oo shape-ka sidaan lagugu select garayo aad halkaas ugu qoran tahay fx kadibna aad ka dooratid stroke halkaas ugu qoran tahay stroke inaad ka dooratid hore hadda usoo isticmaashay stroke hore usoo isticmaashay ayuu maartay isla markiiba shape-ku qaadan doonaa haddii markaa aragtid stroke inaad badsatidna waad badsan kartaa hadda aniga 4 uu yahay xogaa si fiican u muuqdo marka ilaa aad waxaa gaarsiinaa 8 oo kale maartay ayaan gaarsiinaa kadibna waxaa leeyahay okay xagaag saxba ins marka aan sameeyo hadda waxa u jeedin marka meesha sawirku waa uu jiraa sidoo kale meesha waxa yaalo shape-ki aan maartay design ku sameeynahay marka intaanan wax kale aan u guda gelin waxaa sameyn doonaa isla markiiba halkan waxaa ku sameyn doonaa shape-ka sirka kadib waxaa ku qori doonaa roll up kadibna qoraalka ayaan ku qori doonaa shape-ka yarka marka saa u sameey way sahlan tahay waa iska naqaanaa kaas wax hadda nagu cusub maahan qaybta shapes-ka ee tagaysa labs tool ay ka soo qaadanaysaa kadibna halkan ayaa maartay u dhigaysaa halkan marka u dhigtid kadibna waxaad ka bedeli doontaa colorka ayaad maartay ka bedelaysaa maadaama hadda isagoo uusan meesha ka soo muuqanin colorka ayaad maartay ka bedelaysaa hadba adigu colorka aad markaas rabtid isticmaal laakiinse dii qolo ay ku tiraahdo design noo sameey qolada design noo sameey ku tiraahdo waa inaad loogadooda aadan geesna uga bixin haddii aad loogada gees uga baxid oo loogada iyo colorka design-ku ay siila waayaan engineer waxaas waxa waaye waa waxa ku ceeboobays hadhowna design-kaaga maartay magac xumo ku sameyna sidaas u dhicin markaa shirkadda aad u sameynaysid design-ka loogadooda ka koobiyey markasta design-ka aad u sameynaysid hagaag hadda waxaan samayn doonaa marka shape-kan waxaan ku dhex gudaha waxaan ku qori doonaa roll up ayaa maartay gudaha aan uga qori doonaa halkaas ayaan klik siinaa kadibna waxaan ku qoranaa roll kadibna roll markaa qorto control a ayaa leeyahay kadibna waxaa ka bedelaa colorka white ayaan maartay ka dhigaa sababtoo ah meeshan waxay kusoo bixi kartaa waa colorka white-ka ama maartay cadaanka ay kusoo bixi karaysaa waxaan leeyahay marka okay colorka marka leesay kadibna waxaa saaraa checks ayaan saaraa kadibna waxaan ku sameynaa control t kadibna waa soo jiidaa oo waxaa keenaa halkan shape korkiisa ayaan maartay keena si markaa usoo jiid arrowga computerkaaga waa isticmaali kartaa ama dad tagtida hal mar maartay usoo jiidi kartaa laakiinse waxaa kuu fiican inaad arrow isticmaasho inta markaa sameeyo shifti alt isla qabo kadibna geeska soo qabo xogaa sidaas u yaray sidaas oo kale aad maartay u yaraynaysaa kadibna waxaa isticmaashaa arrowska keyboard computerkaaga ku yaal haddaba inta markii aan sameyn hadda meesha waxaa noogu qoran roll bisa noogu qoran ayada ayaan maartay control j leeyahay oo copy aan copy kar ka samaysanaa kadibna hoos ayaa u baxa copygaas marka waxaa ka dhigaa asagana soo kale up ayaan maartay ka dhigaa sidaas ayaa ku sameynaa kadibna waxaa saaraa checkta ugu dambeyn marka control t ayaan leeyahay xogaa waa soo yareynaa marka cabirka xogaa waxaad moodaa inuu shape ka weya waa soo yaraysanaya marka adiga ayay maartay hadba kugu xiranto waxaan waa fikrad aad maartay adu design garaynaya ma ahan waxa lagu leeyahay waa sharci u degani raac waxa lagu leeyahay ma inta marka aan sameynay oo shape halka aan soo gelinay stroke wixii aan saarnay shape-kan roll up ku soo dhex qornay kadibna waxaan u laabanaynaa design-keena sidaa meesha ujeedo waxaa ku qoran welcome to university nsbis ayaan maartay haddana qoraa oo waxa u noqon doonaa isla qaybta wax ku qoray tagasta ayaan soo qaadanaa kadibna halka ayaan wax ku qori doonaa welcome to university waxaa samaynaysaa markaa welcome markaa qortid enter ayaa leedahay kadibna hoos ayaa u degaysaa kadibna university ayaad maartay sidaas aad ku qoraysaa kadibna waxaan samayn doonaa saxbi halkaas oo kale ayaan geysanaa kadib double click ayaa leeyahay waxaan tagaa university horta sababtoo ah university gudaha halkaas oo kale inuu soo aad ayaan rabaa marka space ayaad maartay hore ka soo gelinay laakiinse markasta adiga ayay kugu xirantaa design-kaaga waxaan anigu sameynaa wax ka qurux badan misana u dhoweyn inaad samayn doonto waa rajeena marka waxaan sameynaa university color gaara u yeela welcome-na color gaara ayaan maartay u yeela intaas markii aan sameeyey xogaa qoraalkan isagana kor ayaan maartay u qaadana intaas ayaa maartay sameynaa waxaan samayn doonaa marka saxbiya halkaan markaan joogo inaan mataqaanaya waxaa ku samayn doonaa halkaan markaan joogo inaan halkaan soo gelsho facultiyada ay jaamacaddu bixinayso facultiyada marka intaadan soo gelin ka hor waxaa ku khasbantaa inaad diyaarsid lambaradan 1 2 3 4 5 waxaa ujeedaa markaa lambaradan shapes diyaarsan ayay maartay ku dhex jiraan sidaa markaa taas u samayno halkaan tegaynaa kadibna waxaa soo qaadanaynaa qayb shapeska ayaa tegaynaa shapekan waxaa soo qaadanaynaa oo ellipse toolka ayaa soo qaadanaynaa halka kasoo kale halkaan ayaa dhigaynaa halkaas markaa dhigno kadibna waxaa ka bedeli doonaa colorka waxaa qaadanaa colorka orange ayaa qaadanaa colorka orange markaa qaato kadibna waxaan leeyahay ha laga saaro move toolka ama selection toolka laga saaro control t ayaan leeyahay waxaa sameynaa shift iyo alt ayaa xogaa isla qabanaysaa kadibna waxaa samaynaysaa wax yar ayaad maartay soo weynaynaysaa sidaa markaa usoo weynayd kadibna xogaa kor ayaad u qaadi doontaayo halkaasani ayaad maartay geynaysaa ama waxaa samayn kartaa meesha u qabatay dhexdeeda ayaad maartay qaadi kartaa hadiiba tiba aad halkaas geysan kartaa inta markaas samey saaxiib waxaan leeyahay haddana control j mid kaloo koobi ah laga sameeyaa leeyahay kadibna waxaa isticmaalaa
arrow falaaraha computerkaaga isticmaal oo xoogaa sidaas hoos ugu jiid haddii ay kugu cawsaan dhib ma lahan soo qabo sidaas maartay u soo jiid markale control j dheh soo qabo sidaas u soo jiid markale waxaad tirahdaa control j ayaan maartay markale dhehnaa kadibna waxaan ka samayn doonaa mid kale copy halkaas ayaan geynaynaa kadibna waxaan samaynaynaa xoogaa kan ay kala dheeraadeen labadan xoogaa halkaasoo kale ayaan maartay geysanaa kanna waxaa geysanaa halkaasoo kale cabirkaasoo kale ayaan geysanaa haddaba saaxiibyaal inta markii aan sameeyo waxaan tagi doonaa haddana qaybtan taga oo meesha waxaan ka saarnaa selection tool ka saarnaa sababtoo ah shape kan waxaan rabaa inaan lambaradii soo dhex gelsho ayaan rabaa si aan markaa usoo dhex gelsho meesha control plus soo dheh xoogaa isoo dhaweey saa markaa usoo dhaweyst waxaa la doortaa qaybta hand toolka ayaa la doortaa kadibna waxaa waaye sidaas maartay shape kor u qaado gacanta isticmaal waa kaa qaybta hand toolka halkaas aad maartay click siinaysaa kadibna marka xoogaa sidaas usoo dhaweyst waa ka qaadaysaa halkaa marka waxaan rabaa inaad gelsho lambarada inaad gesho yaraa sidaa markaa lambarada u gesho halkaan tagasta ee taga kadibna halkaan ayaa click siinaa halkaan marka click soo lambar hal ayaan dooranaa lambar hal markaa doorto kadibna waxaa leeyahay control a lambar hal waxaa leeyahay markaa kalarka ha layga bedelo meesha waxaa kusoo baxaysa orange waxaa kusoo baxa kalar cadaan ha leesiyo ayaan maartay dhihi doonaa oo kalarkan cadaanka ayaan maartay lambar hal ku shubi doonaa lambarada dhan kalarkaas ayay qaadan doonaa marka waxaan samaynaa lambar hal waa jiida kadibna waxaa geenaa shapekan halkaasoo kale ayaan geenaa halkaas markaa geeyo control j ayaan leeyahay oo mid kale copy ha laga sameeyo leeyahay lambar hal kale copy ha laga sameeyo halkaas ayaa geeni control j ayaa leeyahay mid kasta markaas u jiidi waxa u jeedaa meesha waxa fuule waxa la yiraahdo mastarad ayaa fuule oo ku muujinayso inaad cabirka geesna aad uga bixin ayay ku muujinaysaa oo dhinac kasta meesha waxa laga saaray mastarad dhaxda mastarada laga saaray labada geesna mastarada laga saaray marka mastarad waxay ku cadeynaysaa inaadan maartay cabirki aadan gees uga bixin waa ka hagaag meesha waxa u jeedaa marka all halaan ugu qoran dhima lahaano kanaan kale double click siinay kadibna waxa ka dhigaynaa 2 kana dul tagaynaa double click siinayna kadibna waxaan dhinaca 3 mid kasta marka double click siin waa inaad check aad iska saartaa hadii aadan check aad saarin waxa waaye hadhow kama gudbi karo checktaas click iska sii kadibna kan waxaad tirahdaa double click sii kadibna waxaad tirahdaa 4 oo kale waayahay saaxiibyaal inta marka aan sameyn xogaa lambarada waxaa moodaa inay maartay waaweyn ayaa moodaa dhima lahan hadii ay shape kugu filayaan lambarada waad maartay qaadan kartaa laakiin adiga marka wax qasbaa waxay tahay shape-ka aan lambarada dhex gelinaysa waa marka kasta wax adiga ku qasbaa haddaba intaa marka aan sameynay halkan waxaan qori doonaa marka faculty-yada ayaa maartay halkan ku qori doonaa si aan faculty-yada u qoro waxaan leeyahay waxaa soo kicdaa keyboardka oo computerka iyo soo kicaa ayaan leeyahay sababtoo ah meesha waxaan rabaa inaan ku qoro markaan text inaan ku qoro ayaan rabaa haddana waxaan soo qaadanaa qaybtan text ayaa soo fura kadibna halkan ayaa maartay click ku sii doonaa qayb text marka soo furo kadibna halkan ayaan waxaa ku sii doonaa halkaas ayaa click ku sii doonaa halkan marka click ku sii kadibna waxaan ku qoraa waxa la yiraahdo computer science sida aan kii hor ku soo aragnaba waxaan qori doonaa waxa la yiraahdo computer science waaye is marka aan sameeyo oo computer science aan meesha ku qoro tagastan computer science ayaan maartay control a leeyahay kadibna waxaan sameyn doonaa inaan mataqaanaa horta marka hore intaan control a dhihin control t ayaan leeyahay oo tagastiga ayaan maartay gudaha ayaan maartay soo geli doonaa halkaan oo kale ayaan keeni doonaa kadibna waxaan leeyahay double click ayaan leeyahay oo tagastiga la select gareeyay kadibna waxaan halkaan ka yaray doonaa size-ka ayaan maartay ka aad ugu yaray doonaa size la qaadan karo ayaan ka dhigi doonaa inta markii aan sameeyo kadibna waxaan soo jeedaa computer science halkaasoo kale ayaa keenaa kadibna waxaan sameynaa halkaasoo kale ayaa geysana halkaas kale markaa geys control j ida waxaa iga sameeydaa copy aa leeyahay halkaas igey waxaa markaa halkan ku qoraysaa faculty-yada kala duwan faculty of agriculture faculty of shareeca and law faculty of computer science faculty of wixii markaas aad u baahantaho kale oo faculty-yada jaamacadda ay bixido ayaad maartaa ka qoraysaa saaxiibyaal intaa markii aan sameyno marka bal aynu u laabano marka hal mar control minus aan dheh hal mar ayaa waxaa u laaban doonaa designkii kale ee noo diyaarsanaa bal wixii meesha naga dhiman ayaa si aan ugu darno kan marka waxaa ujeedaa halkan rulaka waa diyaarinay magaca jaamacaddan facultyada waxaan waa diyaarinay waxaa ujeedaa marka shapekan qaybtan hoose shapeka ayaa maartay hadeerta inaga maqan wax weyn maaho control plus hal mar isoo dhig kadibna waxay soo doortaa qaybta hand toolka sababtoo ah tan waxaa rabaa inaan kor u qaado ayaa rabaa oo halkan aan shape geliyo waxay soo qaadaysaa marka halkan qaybtan shapeska ay tagaysaa kadibna waxaa ka dooranaysaa rectangle marka dooratid halkan ayaad maartay rectangle-ka sidaas u dhigaysaa halkaas ayaa sidaas u dhigaysaa kadibna waxaad maartay samaynaysaa kalarka oo markaas haddii kalarka aad ku qaato waa okay haddii uu ku qaadana waad iska bedelaysaa ana hadeerta marka kalarka aan rabay ayuu ii qaatay kalarkan ka bedeli ma waxaan sameynaa marka kan wax yar ayaa maartay hoos maartay sidaas ugu dhigi doonaa kadibna waxaan rabaa inaan geeskan laba fanax oo yar inaan ka saaro ayaan rabaa si aan ugu saaro shapeska ay tagaa kadibna waxaan soo dooranaa shape yar oo la yiraahdo rectangle 2 kadibna halkaas ayaan maartay sidaas u saari doonaa shapeka halkaas ayaan maartay sidaas u saari doonaa kadibna waxaan sameynaa waa soo qaadanaa control t ayaan leeyahay waa soo qaadanaa shapekan halkaan oo kale ayaan keensanaa kadibna waxaa ka bedelaa
kalarka shaybka kalarka ayaa ka bedelaa waxaan ka rabaa shaybkan inaan meesha u saaro qaab fanax marka waxa ka dhigaa white ayaan ka dhigaa white marka dhigo kadibna waxaan samayn doonaa move toolka ayaan click siinaa kadibna control T ayaan leeyahay waxaan leeyahay marka shaybka xoogaa sida haleegu qaloocisho haddii hadda ku dhaw control plus aan ku yiraahdo si fiican kugu dhaweey ila arag bal markaan shaybka kaas sidaas ayaa maartay ujeedka aan ka lahaa waa inaan fanaxaas yartaa meesha aan saarto oo ay maartay ujeedka aan ka lahay kaas ayuu ahaa marka waxaan samayn doonaa kan marka halkaas ku sameeyo kadibna waxaan leeyahay control J oo mid kale copy ayaan ka sameynaa waxaan geenaa geeskaan oo kale isagana waxaan ku sameynaa control T ayaan ku sameynaa kadibna xoogaa waa gedinaa oo sidaas aan maartay u gedinaa sidaa marka u gediya isagana waxaan leeyahay isagana okay oo si la rabay ayuu ii noqday waxaan sameynaa marka saaxiibayaal halkan waxaan ku qori doonaa ku soo dhawow jaamacadda halkaas marka jaamacadda magaceeda aad maartay ku qoraysaa haddii jaamacad barnaamij u sameeyay oo jiro ayada ayaa maartay ku qoraysaa haddii uusan jirin waxaad rabtay ayaa markaas adigu ku qori kartaa inaad waxaan ku soo qoraa marka ku soo dhawow jaamacadda iskale aniga okay kadibna control A ayaan leeyahay size-ka xoogaa marka waa soo yareynaa maas double T-da ayaa tagaysaa xoogaa size-ka sidaas uga soo yareynaysaa kaas marka sidaas u soo yareeyay marka ilaa iyo adiga meeshii aad rabtid maartay size-ka aad geys adiga ayay kugu xirantahay ku soo dhawow jaamacadda university markaas ka raacay aniga dartaan baa barnaamijkan jaamacad gaar u sameeyay marka hadii adiga jaamacad u sameeynaysid halkaas jaamacad ay ku shiidi doontaa laakiin cabir jaamacad magaceedu ku filan oo dhanba waad haysataa hadda waxa ujeedaa meeshaan qoraal badan ayaa maartay geli karnaa hadda halkaas kale aagay ku soo dhawow jaamacadda halkaas magaceeda ku diri kartaa Hiblaayo University marka waxaan sameeyay aniga halkaan centerko kale ayaan maartay iska geysana inta markii aan sameeyay waxaan markaa leeyahay control minus ayaan leeyahay kadibna waxaan dooranaa hand toolkan kadibna waxaan leeyahay xoogaa hoos igu soo deji wali waxaan leeyahay control minus kadibna waa ka hadda kan sidaas ayuu maartay igu diyaarsan saaxiibayaal marar qaar waxaa laga yaabaa sidii hadda aan ku soo arkaynay design-kii hore saa ku soo arkaynay inaa kanoo kale u baahid oo kan hadda muhiimadda uu leeyahay maxaa muhiimadda uu leeyahay waxa waaye hadda waxaa ujeedaa labadan arday isku dhegan halkan shape-ka in looga dhex jeedo sawirkooda in looga dhex jeedo ayaa ujeedaa shape-ku oo yahay bila opacity haddii aadan rabinna waad isticmaali kartaa qaabkan hadda aniga aan isticmaalayo maartay kanoo kale waad isticmaali kartaa haddaba sidoo kale meesha waxaa ka maqan shapeska geesaha aan saaray hadda kan waxaa ujeedaa geesihiisa waxaa ku jira shape kala rale ayaa ku jira kan marka aniga ma saarayo sababtoo aan u saarin waxay tahay design-ka hadhowt markaa soo gelinaysa birtan iyada ayaa waxay leedahay frame oo inaad frame saartid uma baahno laakiin adigu waa ku darsan kartaa waxaa markaa frame aan ku darino hadhowti birta waxaa waa iyadaa frame leh framekeeda ay u maartay stickerkaadu ku ekaa doonaa ku go'i doonaa sidaas samee marka hagaag haddaba saaxiibayaal haddii aad rabtid marka color offriga qaabka aad colorka meesha shape-ka colorkiisa aad u yareen haddii aad rabtid aniguna hadda kuu sheego waa awooda balse waxaan kaa rabaa qaybtaas inaad u qaadatid assignment ahaan haddii ay idinku adkaatana ila soo wadaago aniga maartay ayaa idin tusi doona haddaba saaxiibayaal intaa markii aan sameeyey oo shape-ka aan sidan u design garaystay waxaa ujeedaa shape-kan waxba igama dhimana rule up-ka aan dirtaa waa mid ii diyaarsan waxaan sameynaa markaa file ay ku qoran tahay taga kadibna waxaan ka dooranaa save as marka ka doorto kadibna waxaan leeyahay waxaa igu seeftaa computerkeyga save on your computer ayaa leedahay kadibna waxaa samaysaa qaybtan waxaa soo doorata jpeg halkaas kugu qoran tahay jpeg ayaad maartay soo dooranaysaa sidoo kale locationka lagu dhigaa asagana maartay waa iska bedelaysa haddana waxaa leeyahay desktop oo kale ii dhig kadibna waxaa igu qortaa abtaas bis ayaan leeyahay sababtoo ah desktopka hore waxaa igu yaala rule up kale ayaa desktop hore igu yaala haddii aad darta aan kana u diro waa la diidaa marka qaybta marka abtaasoo kale ayaan maartay ku save garaysana kadibna waxaan leeyahay save quality-ga halkan waa inay ku ahaataa 8 haddii ay ka yaraato waxay kaa noqonaysaa low ama medium si marka hadhow resolution qurxoon oo kugu soo baxo halkaas ku ahaato 8 ha ku ahaato kadibna waxaa leedahay okay ayaa leedahay hagaag saaxiibayaal hadda waxaan rabaa marka rule up-kan hadda ii diyaarsan waad ujeedaa kan waa kii hore rule up-kan kale marka aysan wax dhisayn hadda aysan saarneen ayaan waxaa rabaa inaan saaro design-ka aan anugu hadeertaan soo samaysan si aan u saaro marka control O ayaan leeyahay control O markaa idhaa kadibna waxaan dooranaa desktopka wixii aan soo save garaysan waxaa ula baxnay app ayaa ula baxnay waa kana mid app ay kugu qoran tahay ayaad maartay soo furaysaa kadibna markaa soo furto waxaa samayn doontaa waa soo qaadaysaa halkaan oo kale ayaad maartay keensanaysaa saaxiibayaal inta markaad sameydid kadibna waxaa leedahay control minus ayaa leedahay sababtoo waxaan rabnaa inaan halkaan yareyn ayaa rabnaa kadibna waxaa leedahay control T ayaan leedahay kadib waxaad la qabanaysaa shift iyo alt ayaad la qabanaysaa waad yareynaysaa marka xoogaa sidaas ayaad maartay u yareynaysaa kanoo kale markaa halkaas geysta kadibna waxaa leedahay control plus aa leedahay design-ka meeshiisa hore haliigu soo celiso waxaa deed control meesudaya waxay inaa kan cabirkiisa uusan maartay iga kala dhumin hadda waxaa leeyahay marka control T ayaan leeyahay kadibna waxaas la qabanaa geesaan ayaa qabanaa geeska markaa qabto waxaa geey doonaa halkaas u sarreeyoo kale ayaan geyna halkaasoo kale ayaan geyna saaxiibayaal halkaas markii aan geey kadibna waxaa sameynaa xoogaa geeska sidaa ayaa u qabanaa kanna sidaa ayaa maartay u qabanaa oo halkaas saroo kale
ayaan maarta siis u geynaa kanna waxaa ku samaynaa xoogaa inaan halkaasoo kale aan keeno kanna sidaas ayaa maarta usoo qabana oo halkaas ayaa isagana gey doonaa saaxiibyaal waxaan leeyahay checkta la saaro waa kaa waxaa ujeediin marka xoogaa in mataqaanaya oo asaguna meesha maarta inoo saaran laakiin waxaad moodaa xoogaa inuusan dhisaynkiisu qurxooneyn problem marka meesha naga haysto meel kale maahan waxa waaye rule upka markaan soo gelinayn si saxa uma aanaa soo qaaday marka resolutionkaas ee u maartaya naga qaldo yarka ayaa maarta wax dhibasa ma lahano haddeertaan ayaa maarta sixan doonaa hagaag waxaa samaynaynaa marka saaxiibyaa kan inaan jiidno ee waxaan rabnaa geyno meesha haddeertaan si aan markaa u geyno hadda markaa soo qaadno waa kaa marka wuxuu ku leeyahay si loo qaado waxaad ka saartaa waxa la yidhaahdo layer background ka saar si aa u saarta marka convertiga leedahay adeer warkasuu isku dhan yahaa leedahay kadibna waa kaa waad qaadi kartaa waxaa samaynaysaa marka waxaad dul geenaysaa designkan kuu diyaarsan ayaad dul geenaysaa kadib waxaa ayaad geenaysaa kadib waxaa leedahay control minus ayaa leedahay kadibna waxaa isla qabanaysaa control t kadib haddii weli uu kugu sii yaryahay dhib ma lahano waa sii basa kartaa control minus ayaa sii leedahay kadibna waxaa leedahay control t markaad tiraa shift alt ayaa isla qabanaysaa kadibna waxaa samayn doontaa geeska xoogaa sidaas ayaad maarata usoo yaray doontaa halkaasoo kale ayaad maarata gei doontaa kadibna waxaa leedahay control plus aa leedahay ilaa iyo cabirkii saxda aad ku soo celin halkaas ayaad maarata kusoo weysa hal mar control minus anoo kadibna waxaan samayn doonaa saaxiibyaa kan markii aan halkaas geey kadibna waxaa leeyahay halkaasoo kale halii saaro geeskaasoo kale halii saaro waxaa leeyahay control t ayaan leeyahay control t markaa idhaha geeskan waa qabanaa sidaas ayaa maarata u ekeysiinaa kan kor waa qabanaa isagana sidaasoo kale ayaan maarata u ekeysiinaa kan hoosesna waa qabanaa sidaas ayaa u ekeysiinaa kadibna checkta ayaa saaraa intaa markii aan sameeyey marka waxaa ujeedaa rule upka hadeerta waa uu ii diyaarsan yahay xoogaa waxaad moodaa labadan gees inay maarata wax yar banaanka sii jiraan ayaad moodaa xoogaa marka halkaasoo kale ayaan maarata keena hal mid markaa saxda xoogaa waxaa samaynaysa aarowga ayaad maarata wax yar kiligsiinaysaa kan kalena halkaas ayaad ka saxaysaa saaxiib yaal waxaa ujeediin rule upka hore ee noo diyaarsanaay iyo sidoo kale midka hadeerta inoo diyaarsan waxaan filayaa rule upkan midka qurux badan inaad samay doontiin haddii ay jirto wax su-aal ay qabtiin qaybta hoose commentiga ula soo wadaagay anna waa idinkaga soo joogi doonaa sidoo kale waxaad assignment ahaan u qaadatiin rule upkii hore noo diyaarsanaa waxaa ujeedaa meesha sheebka ma uu laha wax opacity oo waxa kish ahaan idinkugu sii sheegaya inuusan sheeb ku lahayn wax opacity laakiin rule upkan dambe ee hadda aan samayn oo uu leeyahay opacity hagaag saaxiib yaal sinintaa gaari doona casirka xiga waa dhammaantoona dhammaantiin isma dhaaf